kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena siyaasadda iyo sirdoonka oo aan ku soo qaadan doono qodobo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo codsi u diray madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland maxaa ka jira in la fududeeyay weerarkii Hotel Elite ee magaalada Muqdisho dawladda Shiinahana waxa ay soo saartay hub halis ah oo hal rid ku cuuriyaamin kara garoomada diyaaradaha caalamka daawadayaal qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba barnaamijka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo xalay shir jaraa'id ku qabtay madaxtooyada Dhuusamareeb ayaa sheegay in uu furmay wajiga koobaad ee shirka Dhuusamareeb 3 madaxweyne Qoorqoor ayaa ka warbixiyay shirka isagoona xusay in maanta ay la kulmeen guddiga farsamada ayna ka dhageysteen warbixino hadal oo quus ayaa u jeediyay madaxweyne Qoorqoor kaas oo ku aadan rajo xumada laga qabo in uu shirka fashilmi rabo waxaana uu ka codsaday madaxda shirka ka maqan in ay ku soo biiraan shirka Dhuusamareeb 3 madaxweyne Qoorqoor ayaa si gaar ah uga codsaday madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay ka soo qayb galaan shirka Dhuusamareeb 3 qadariyana reer Galmudug oo gogasha dhigay walaalayaal waan idin sugaynaa noo imaada shirka inaad ka soo qayb gashaan ayaan rajaynaynaa ayna tixgeliyaan oo ay qadariyaan gogasha reer Galmudug ayaa uu yiri madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor sida la socotaan Dhuusamareeb 2 waxaa lagu heshiiyay in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb 3 waxaan weli soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb galin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo runtii aan cududaar u sameynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay الله عافيان لeenahay dhamaan madaxda oo mahadcelinayna madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinayna sorry waxa yimid madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd waa mahadcelinayna waxaan rabnaa inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd ayagu ay dhinacooda ballanta ka qabteen oo leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taala oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan waxaan isleenahay xilli fariimaha wada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogasheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogasha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga oo ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hada ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa ka fahmeen waa iska fahmeen Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyay tirina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu aamada Soomaaliyeed
labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaanan wax aan haba yaraatee keeni kara in dib u dhacdo oo waqtiga qaaliga ah Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan insha Allah waxaan leeyahay kale gobasha waxaa dhigay reer Galmudug walaal kasta oo wax qabi kara gobasha reer Galmudug ku taxgaliyo qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaan ka bari karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas'uulkii qaba saadarteed gobasha la qadariyo hana la yimaado aad iyo aad maadsantihiin shirka jaraa'id ee madaxweyne Qoorqoor ayaa yimid iyadoo ay jiraan hadal hayno la xiriira in uu taageeray qorshihii madaxweyne Farmaajo iyo in uu socdo qorshe madaxda ku sugan Dhuusamareeb ay kaligood go'aano gaar ah ku gaarayaan iyaga oo ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland waan filayaa inaad wax badan ka ogaateen wixii ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe iminkana weerarkii Hotel Elite ee magaalada Muqdisho waxaa wali soo taraya macluumaadka laga helayo weerarkii xoogana ee maalin ka hor lagu qaaday Hotel Elite ee magaalada Muqdisho kaas oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa sheegay in la fududeeyay weerarkaasi xilli uu waraysi siinayay Radio Shabeelle Indhacade ayaa waraysiga lala yeeshay ku sheegay in gaariga uu ku qarxay afaafka hore ee hotelka iyo raggii saarnaa loo fududeeyay in ay tagaan hotelka oo si weyn loo ilaaliyo sidoo kale waxa uu tilmaamay in goobta la weeraray ay ku yaalaan kontaroolo dhowr ah oo lagu baaro gaadiidka kala duwan xitaa kuwa dawladda isaga oo carabka ku adkeeyay in si fudud aan lagu geli karin halkaasi isla markaana ay caddahay in lala shaqeynayay raggaasi weerarka fuliyay waa loo fududeeyay in gaarigaasi uu meesha tago waa lala shaqeeyay si kale oo uu ku dhici karo وما الأسكالية ما هنا واكي واركو كل عاي عصيقتها واكي كل عاي فيها هوجة نرى بارو كل عاي الحيادو الكوا مارك أسلاس انت بواعد كلين بيشاني بيشي هورا دبايا غريبة مركا وحنسلايا هاي كل لابا أدوات بواجران هذا أسلام أمن ويجفتا ندك على الدهورة بشيرون ونقولي واسكن المال شبابكي هذا أمنه مركا واسكن من الكاس إيوه حساب الآن كتع علي مارة الجفتة وأن قفنا دبلو حساب تمين وأن قفنا دبلو إيجين وقف وحبأوسا كبغانين وحبأوسا إلى شنين مارة من آدم كنا سيسا عبسيوكو شخايا وهذا جيد كتع علي مارة قبل براندر وانت قدوميه قبلك أما أدوها بيانا الله يهدو حلاسة صار مجران الظاهرة مجرته إدارنا مسؤول كاي إدارنا كشغين يسد نمر إن دلال البوئي ذي وقمتي waxaa ka dhacay qarax weerara ka dhacay xabsiga dhexe taliyii asluubta oo meesha mas-uulka ka ah la baaraya guddigeeda lagu daray oo isageeba guddi ka ah baare isbaaraa waaye marka wax badana waxay suurtagal ku tahay waa loo fududeeyey gaarigaas inuu meeshaas tago waa lala shaqeeyey si kale ku dhici karta male aniga baaburaa ila socda cabdibiraad ishii ka saaran yahay baaburkayga ciidanaa saaran waa lay celiyaa waa lay baaraa cidhi kalaa la weydiiyaa hataa gaarigayga iga horeeyo ishiikaha yani haddii la yidhaha in dhaxdaa saaran lagama aqbalo waxaa laga yaabaa guriga haddaan kasoo kaco 3-4 checkpoint inaan maro marka anaga yani si kale kuma tegi karo waa in loo fududeeyo gaarigaas hotelkaa ku tegi malasmadii kale way awoodaan inay bartilmaameedsadaan dal kasta oo doonaan way awoodaan say doonaan inay u awoodaan laba sababoodna waa keenay iyagoo oo horta aan walahi saaran uusan jirin oo ayagu ay maaragtay nabad qabaan way keeneen waxaa kaloo keenaya xisaabtan la-aanta yani dawladda hay-adaha amniga aan laga xisaabtamayn waxyaaba dhaxal lagu xisaabtamayn labadaas qodoba way keeni waxaa looga gaari karaa laba arrimood labadaas arrimood oo ah horta in
hay-adaha dawladda la nadiifiyo oo maaragtay wixii laga ilaaliyo maaragtay in aysan lug ku yeelan nimankaasu. qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye in meel kasta oo ay joogaan nimankaasu lagu ataago lagu soo afjaro madaxdooda, ciidankooda, maamulkooda, amniyaadkooda, hay-adooda dhaqaalaha, meel kasta. xamarta ka dacmada cashuur ka qaadanaya, yani dukaanka madaxtooyada kasoo horjeeda cashuur ka qaadanaya, gurigeeda mid ku dhegana cashuur ka qaadanaya, bajaajta cashuur ka qaadanaya. weliba maalmadii sheekeynayay askariya oo tirakoodaa socday fasaxaa laga dhamaaday laag waxaa ka socday balidoogle markaan raaco yidhi caasiya oo nagala yaaban yahay. wuxuu yidhi markaan meel dhexe marayno aanin ka soo boodo uu yidhi meel oo u dhiibay uu yidhi doono oo ku qoran yahay number telefon waxaa ku hooya caasiga. markuu rogna uu arko tuuto inaan tuuto sito uurka uu isku tuuro uu yidhi anigana baaburkiiaan warsamahaan oo yidhi meesha mootooyina u yaalla. marka meel walbay dhaqaale ku qaataan yani maxamar meel kasta oo niman jaaris haysta. marka jaariskaas waa in nimankan loogu tagaa goobaha ay joogaan. si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa kusoo beegmaya maalin kadib weerarkii cuslaa ee lagu qaaday hotel Elite kaas oo ay ku dhinteen in ku dhow 20 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan oo isugu jiray shacab iyo shaqaale dawladeed intaba. Shiinaha ayaa daaha ka rogay in uu haysto hub aan caadi ahayn oo ay u badan tahay in lagu xiri doono dayuuradaha J-16 iyo JH-7 iyo sidoo kale bombooyinka H-6 kaas oo ay gantaal awood u leh in uu rido boqolaal rasaas ah oo isaga ka sii dhex baxaysa taasoo loogu talagalay in lagu weeraro garoomada dayuuradaha cadawga. hal toogasho ayaa uu ku cuuriyaamin karaa awoodiisa shaqo ee garoonka. waxaa dheer in waxyaabaha soo baxaya ay ka mid yihiin miinooyin ay hadhow halis tahay in xitaa hadhow laga nadiifiyo dhabaha dayuuradaha ay ku cararaan, ayaa uu yiri khabiir ciidan oo Chinese ah oo la hadlay wargeyska Global Times. hubkan ayaa Shiinaha siin kara gacan sareynta dagaalada istiraatiijiga iyo fursadda tactical ah isagoo uu cufkiisu dhan yahay 500 oo kiilo. waana bambo nooca remote-ka laga hago balse u samaysan sidii gantaalada casriga ah. bamkan oo gudaha ku sita rasaas iyo bombooyin kumanaan ah oo hadhow kala firxanaysa ayaa waxaa sidoo kale adag in raadaarada lagu arko, taasi oo awood u siinaysa in uu gaaro bartilmaameedka rasmiga ah ee la doonayo. markii dayuuradda laga tuuro wuxuu la baxayaa baalal, taas oo siinaysa awood dheeraad ah oo jibaaxid iyo mid kontarool, isla markaana sahlaysa in la kordhiyo xawaaraha ay ku socoto iyada oo wax ka dili karta ilaa 60 kilomitir sida uu sheegay telefishinka CCTV. mid kasta waxa uu sitaa 240 nooc oo rasaas hoosaad ah oo ka kooban 6 nooc oo kala duwan, taas oo markii la sii daayo daboolaysa 6000 oo mitir oo jibaaran, ayaa uu sargaal ka tirsan Noricon. waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena sirdoonka iyo siyaasadda qaybtiisa koobaad. fadlan la soco qaybaha dambe.